heesuhu waa xaaraam mana bannaan nabigana calayhi salaatu wasalaam wuu caddeeyey nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka inay imaan doonaan dad banaysanahayo alxira walxariira buu nabiga calayhi salaatu wasalaam farjiga xaaraamta ah banaysan doono xariirta xirashadeedana banaysan doono dadkaasa imaan doono nabiga calayhi salaatu wasalaam الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كلمتنا ما أنت وحي كسب صنتها هاي موضوع مهم موضوع ذاتك أنت بدن أي اسكفوا ضيستين موضوع dadka in ka badbaaday ay yar tahay mawduuca wuxuu yahay xukunka heesaha iyo dhageysigooda shareecada maxay ka qabtaa ma xaaraamba ma bannaan yahay mase ma bannaano masalada ayaan wixii ilaahay naga karsiiyey subxaanahu wa tacaala ayaanu ka tilmaami doonaa nicmooyinka allah subxaanahu wa tacaala addoommada uu siiyey waxaa ka mid ah maqalka ayaa ka mid ah maqalka waa nicmo waxaa dareemi karo qofkii waayo nicmada oo dhagalaano ay ku dhacdo oo maqal la'aan ay ku dhacdo qofkaasaa dareemi karo saa darteed nicmada in la ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu shukriyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu raadi ka yahayna loo adeegsaday mudan tahay nicmada dadka in badan oo ka mid ah kuma baraarugsano dadka in badan oo ka mid ah waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala raadi ka ahayn ayay u adeegsadaan xukunka heesaha iyo wixii la mid ah magacii la rababa ha loo bixiye shareecadu maxay ka qabtaa allah subxaanahu wa tacaala wuu caddeeyey heesaha xukunkoodu wuu caddeeyey salafkii ummaddanna way caddeeyeen nebiga calayhi salaatu wasalaamna wuu caddeeyey waa xaaraam allah subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى وحوت المامها يا وأوليه ددك وحاكم دد إيبسنيه لهو الحديث ورك كيس الغضاه ليضل عن سبيل الله sababta ama cilada ama xikmadda iyo ujeedada waxa way liyudilla an sabilillah jidka Allah subhanahu wa ta'ala inay dadka ka leexiyaan ay ka lumiyaan iyo inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayaadkiisa ay jees ka dhigtaan bigayri ilmin bi Allah subhanahu wa ta'ala waxa u geynaysa arinta garasho la'aan cilmi la'aan لأن هذه قفك وحي وقرنيه هذا نوصن كو عمل فلينين السقون علمي أولهين بيضلمته وحي كوترتي هذا حكمك قرنيسو أقوان تيدنا الله دهي ومع ذلك أدقيسانيسو وما أد كجرت بغير علم لا آيادة إن بدن علماء السلف كمده waxay u daliishanayaan inay tilmaamayso heesuhu inay xaraam tahay lahwa alxadiidka laga sheekaynayana uu yahay heesaha iyo muusiga iyo dhaantada iyo buraanburka iyo wixii la midka ah wixii ilaahay subxaanahu wa ta'aala jidkiisa dadka ka leexinaya oo shareecadiisa aan ku banaanayn culimada qabta
inay aayaddu sidaa ay tahay waxaa ka mid a ibnu cabbaas saxaabigaas weyn wuxuu leeyahay nasalat fi lghinaa heesaha ayay ku soo degtay aayadan iyo wixii heesaha la mid ah. cabdullaahi bin mascuud asagu wuu ku dhaaran jiray, wuu ku dhaartay 3 mar buu ku dhaartay, ilaahay baan ku dhaartay waa qinaha iyo heesaha iyo weeye ayuu yidhi lahwa alxadiid. cikrama oo asagana taabici ah, asagana sidoo kaleeto ayuu maraya. culummada salafka ah, saxaabadii, taabiciintii, intaaba waxay leeyihiin waxa aayadda ay ka hadlayso ay tilmaamayso waa heesaha. saa darteed heesuhu waa xaaraam, mana bannaano. nabigana calayhi salaatu wasalaam wuu caddeeyey. nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka inay imaan doonaan dad bannaysanahayo alxira waalxariira buu nabiga calayhi salaatu wasalaam, yastaxilluuna alxira waalxariira, farjiga xaaraamta ah bannaysan doono, xariirta xirashadeedana bannaysan doono. dadkaasaa imaan doono yuu nabiga calayhi salaatu wasalaam. khamradana bannaysan doono, macaasiftana bannaysan doono. macaasifta maxaa la yihahdaa? waa waxyaabaha lagu daaho, waxyaabaha la garaaco, waxyaabaha muusiga ah, waxyaabahaasoo dhan ayaa waxaa la yihahdaa macaasif. aalaat allahwi waalmalaahi baa la yihahdaa. wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam dad ayaa waxay degi doonaan buur dhinaceed, markaasay galabkii soo caraabin xoolahoodii, markaasay u imaan, waxaa u imaan dad socdo ayaa u imaan, markaasay waxay dhihi way weydiisanahayaan, baahidooday weydiisanahayaan, inay soo dhoweeyaan bay weydiisanayaan. markaas waxay leeyihiin irjic ilaynaa gadan, berri noo soo noqda. markaasuu ilaahay subxaana watacaala habeenkii baabi'inaya dadkaas. markaasuu ilaahay subxaana watacaala buurtina dejinaya, markaasuu wuxuu masaxayaa, kuwo kalena wuxuu ka dhigahayaa qiradatan wa khanaazira ilaa yowmi alqiyaamati laga gaaray. maxalu shaahidka xadiidka waxa weeye waxyaabaha aakhiru zamaanka dhici doono badan doono waxaa ka mid a buu yihi nabiga calayhi salaam macaasifta, muusiga iyo heesaha iyo waxa lagu daaho ayaa badan doono yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam. xadiidka wuxuu nas ku yahay oo ku cad yahay inay bannaanayn muusiga iyo heesaha. arrintaasuu ku cad yahay oo uu caddaynaya oo uu tilmaamaya. culummada qaarka ku tilmaamay inuusan ku caddaynna qowlkoodu waa shaad wey. akharu lmufasiriin waxay qabaan aayaddii aan tilmaannay inay xarimayso ama ay tilmaamayso heesaha iyo wixii la midka inaysan bannaanayn. xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu tilmaamayaa oo uu sii caddaynayaa arrintaa inaysan bannaanayn, heesaha iyo dhegaysigooda iyo shididooda inaysan bannaanayn. waxaa kaloo nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi waxaa ahaan doono ummaddayda dhexdooda qadfun wa masxun wa khasfun. 3 arrimood buu tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam. qadaf, gamid wax lagu soo gamo ummaddii. ilaahay baa garanaya subxaanahu watacaala ummaddiisa markay caasiso oo dariiqadii ilaahay subxaanahu watacaala ay ka leexato, ilaahay subxana watacaala wax musiibo kusoo tuura, dhulku la gooyaa. qadfun iyo wa masxun in la bedelaba ayagoo dhanba, iyo khasfi dhulka in lala gooyo ayaa ahaan doonuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam. markaasaa waxaa la yidhi yaa rasuula allah wa mataa daak, arrinta
qadfiga iyo masxiga iyo khasfiga arrimaha goormay dhacayaan nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa daharat almacaazif markii ay muuqatoy daahirto muusiga iyo heesaha iyo waxyaabaha la garaaco iyo waxyaabaha lagu daaho markii ay daahirto oo bannaanka ay yimaado wa kahura alqiyaan fanaaniinta iyo kuwa heesana ay bataan in badan waxaa caddaynaya arrintaa waaqica aan ku noolnahay ayaa caddaynahaya oo fasiraya inay macaasiftii iyo muusigina ay bateen fanaaniin iyo dad magacyalehna ay bateen fasir uma baahno waqtigii nebiga uu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam ayaa la taagan yahay wa shururiyat alkhumuur buu nabiga calayhi salaam khamradana la cabo arrimaha markii ay daahiraan markaasuu ilaahay subxaanahu watacaala ummadda uu qadfi iyo masxi iyo khasfi uu ku sameeyaa buu nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaa kaloo nabiga uu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam in ummadda ay bannaysan doonaan 6 arrimood markii ay bannaystaan in la halaagi doono إذا استحلت أمتي 6 فعليهم الدمار بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا ظهر فيهم التلاعن مركي لحظة وموقضة وظاهرة إسلعند بركود بركة كلاي لعنة هيا بركود بركة كلاي هبار هيا وشربوا الخمور بالنبي عليه الصلاة والسلام خمرنا أي عبان ولبسوا الحرير dharka xariirtana ay xirtaan lianna xariirta ma banaano ragga uma banaano wattakhaduu alqiyaan fanaaniin iyo dad heesana ay samaystaan buu nabi calayhi salaatu wasalaam waktafa alrijaalu birrijaal raggana ragga uu ku kaaftoomo oo wax ka raadsado ciyaadan billaah wannisaa'u binnisaa 6 arrimood markay dhacaan buu yidhi facalayhim albinaar ummaddaa waxa ay sugtaay waa in la halaago la baabi'iyo nabiga wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam arrimaha markii ay dhacaan oy muuqdaan oo bulshada ku baahaan oy dhex galaan in la halaagayo in la baabi'inayo halka xadiidka waxaa ku jira wattakhiduu alqiyaan ay samaystaan dad heeso ay samaysan doonaan taa waxay tilmaamaysaa marka oo xadiidku uu ishaarahaya inaysan wax bannaan ahayn maxaa yeelay waxa lagu cadfay oo ay ku xiran tahay oo jumlada ay ku dhex jirto waxyaabo aan bannaanayn saa darteed marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa heesaha iyo dhegaysigooda inuusan bannaanayn in la samaysto inaysan bannaanayn in la duubto oo la kaydsado inaysan bannaanayn taleefankaada inaad ku shubato inaysan bannaanayn garanaysaa waktafa alrijaalu birrijaal waxaa laga wadaa raggii bay qowmuluutnimo iyo wax ka raadsanahayaan waa waaqic hadda taagan ilaahay subxana watacaala ummaddiisa ha badbaadiyo dadka muslimiintana ilaahay subxana watacaala ha hanuuniyo wannisaa'u binnisaa dumarkana dumarka ay wax ka raadsadaan waxaaba moodaaba waaqica hadda aan joogno inuu nabiga sala allahu calayhi wasalam uu noo caddeeyey noo sii tilmaamay noo sheegay waaba noo sheegayo waqtiga asagaaba dhex taagan yahay markaad akhriso axaadiista markii aad nabiga sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa aad akhriso waxaasoo dhan waa kuu muuqanaya saa darteed marka waxaa la doonayaa naftayda iyo walaalahaaba aan ku baraarujinaya in aan iska ilaalino inaan la fududaysanin heesaha iyo dhegaysigooda inaan lagu mashquulin welidaa hadda sidii hore ka xoog badan ayayba hadda u socotaa haddii taleefonkaada aada furto hees baa kaa soo horbaxayso nashiido wax daran xambaarsan baa kaa soo horbaxayso magacii la doonaba ha loo bixiyo waxaan haddiiba marba waxa ay xambaarsan yihiin oy tilmaamayaan wax bannaanba aysan ahayn heesaha aan sheegayna ay ka mid yihiin aduu magacaa doonto oo la bax waa dhaanta dheh waa nashiido dheh waa hees dheh magacaa doontaba ku tilmaan
sidaa inay tahayna nebiga noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo heesaha lagu banaysan doono magac ay lahayd magac aan ahayn nebigaa sii cadeeyey calayhi salaatu wasalaam. hada wabillahi tawfiiq, sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam.